السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalayga qaaliga ah soo dhawaada waxaan hagaagsanayaa maanta ama aan sameystay caanaha macaan insha Allah waa idin la wadaagay idinkana ka faa'iideysi wacan sidaan u sameystay waa idin tusayaa step by step caanahan waxyaabo badan ee ka anfacaysa mar walba ma soo gadi kartid gurigaaga inaad ku sameysan taqaanid way fiican tahay waa wax iska sahal ah ma dhib badno marka waxaa kuma dhibeyso insha Allah waxyaabo badan waa loo isticmaalaa caanaha macaan concentrated milk waaye ayagoo gasacadeysan magacaasa loo yaqaanaa soo ka faa'iideysi wacan sidaan u hagaajinayo ila daawada waad ka faa'iideysiin insha Allah waxaan halkan ku haystaa 2 koob oo sokor ah 2 koob oo sokor waaye sokor caadi sokor la sokorta heli kartid isticmaalaysa cadaan guduud ayu nooc sidoo kale waxaan haystaa blue pan caagas waa caag blue pan ka 2 koob waa kuwaas midna aad buu u buuxaa midna wax yar buu dhiman yahay kana waa blue pan iyo halkan waxaan ku haystaa caano waa caanaha full cream ka ah fresh milk waaye intaas meesha igu jirto caagan wuu weyn yahay 2 litir u qaada caanaha laakiin aan 2 litir ma wada isticmaalay insha Allah half uu ka badan yahay litir isticmaali doonaa sida ula socda digsigaana iskugu geenayaa digsigaana ku hagaajinayaa insha Allah ka faa'iideysi waan waa wax yar oo iska basiid ah oo na dhib badanayn gurigaaga ku sameysan kartid lacagna kaaga bixeynin waxa waay anytime aad hagaagsan kartaa kumana dhibayaan marka qofkii aqoonin aad buu ugu faa'iidayaa wuuna ku nasanayaa sababtoo ah waa la iskaga baahan yahay macmacaanka xilliga sameysanay sidoo kale halkan waxaan ku shubanayaa caanihii waaye caanaha waa full cream waa caano culus aad bay u adag yihiin waad aragtaan kulli kuma wada dhameynayo wax yaraan ka reebanayaa halfway ka badan tahay digsigaad waxaan ku shubtay caanihii waxaan ku darsanayaa 2 koob oo sokorta ahayd sokortii aan ku wada shubayaa adaalkooban ku shubay haddana koobka kale aan ku shubtay 2 koob waaye waxaan meesha ku haysto blue pan-kan hadda kuma daraayay waan isticmaalaa laakiin gadaal aan ugu dari doonaa hadda caanaha iyo sokortaan dabka saaranayaa caanaha iyo sokorta isku soo karinaa kadib waxaa blue pan gadaal aan kaga dari doonaa insha Allah dabkiyaan hadda shidanayaa digsiga dabka saartay caanaha weli way qaboob yihiin dhulka iskugu geeyo iyadoo qaboob sokortii iyo caanihii marka waxaa waaye haddaan dabka soo saaray waa dabka marka saa u saartid caanaha soo yar kulaato waa inaad dhaqaajiska ka daynin oo gacanta saas ugu haysaa markasta waa labe saas la ku wadaysaa ilaa ay ka soo yar adkaato ina saas u labtaa markasta gacanta ku haysaa wax yar caanaha kore u soo kacay haddana way laabane adeer waa kan way soo kulaatay kore u soo yar kacaysaa weli gacantan ku haynaa waxaan ku labayaa qaadadii ama waxaa waaye baalkan ku karinayo maykaan ku isticmaalayaa qaado waa isticmaali kartaa haddii aad doonto soo sidaasaan kusoo wadaa ilaa ay kasoo yar adkaanaysa hadeer way soo yar adkaatay maasha Allah sidaasaa la rabaa adeeg zaa'idna lama rabo raali noqda iftiinkii iga damay hadeer waxaan ku darsanayaa blue pan-ka hal qaado yar aan ku darsanaa kama badinaay kadib waan soo dhaqaajinaa markay diyaar noqoto oo sidaas iskugu soo labo blue pan-ka uu ku dhalaalo dabka waan u daminayaa dab yarna waa inaad ku karisaa mar waliba haddii kale way kaa gubanaysaa ama zaa'id ay usoo daadan blue pan-ka hadduu ku dhalaalo waan kasoo dejinayaa waa diyaar sidaas la kugu dhalaalina hadeer waa diyaar blue pan-ka bisa dhiman inuu ku dhalaalo blue pan-ka hadduu ii dhalaalo waan gadin maasha Allah weelka aan ku shuban lahaa soo diyaarsaday caanihii waa ii diyaar waad aragtaan sidaasay iigu soo baxeen sokortii caanihi oo isku soo dhilaaliyay hadeer waa kuleel ma qaboobin wax yar haday qabowdo way fadhiisanaysaa way yara adkaan adeeg zaa'id marka ma fiicno inay ka noqoto
waa sidaas qiyaasta lagu sii deynayo. Blue band yaraa ku jiro, laakiin dhib male, weli way kulushahay caanaha, wuu kusii dhalaalaa. wax yar baan ku arkay. marka sidaas waaye, caanaha sidaasay diyaar ku tahay already. waxaa rabta oo isticmaalaysaa. anaga maanta waa idinkaga sii faa'iideeyay. anaga maanta waxaan karsanay rootigaana quraac ka dhiganay. marka rootigaana rabo inaan kor kaga shubo. rootigan waa la jecel yahay, horena waa idin soo geliyay anigoo sameeyay. maanta abaaya noo sameysay, maasha allah. soo rootigan waa aad aan u jecelnahay. quraac baa iskaga dhiganaa mar. caaneni waa kaas, sidaasay diyaar nooga tahay. wax aa hubtid waaye, wax fudud waaye, gurigaa ku hagaagsan kartid. wax lacag iyo qarash badan kaaga baxeenin waaye, maasha allah. marka ka faa'iideysi wacan walaalahayga. intii taqaan way taqaan, intaa aqoonin ha ka faa'iideysato, maasha allah. raali noqda biibida codkeeda haddii aad maqlaysiin. sidaasaa rootiga kor loogu shubtaa. marka macmacaan waaye oo sahlan. haddaa rabtid waxyaabo kale u isticmaali kartaa. anaga maanta waxaan kor kaga shubanaynay rootigaas. waa rooti farmaajo, maasha allah. haddaa foornada kasoo bixinay, asna waa diyaar, koraan kaga shubtay. marka waa idinkaga sii faa'iideynayo walaalahayga. ka faa'iideysi wacan, maasha allah. sidaas oo quruxda badan ay kuugu soo baxaysaa. marmarka dambeyso hadday yar qabowda way soo yar adkaan. haddeer waa idin tusayaa intay adkaatay. saxankaasaa soo saarayaa saa u aragtaan. sidaas ay kusoo baxday. saxankaan soo saarayaa insha allah. haddeer waxaa waaye waa diyaar. rootigii dhexday ka gashay, way yaro qabowday. rootiga waa inuu dhexda ka galaa. caana waa inay dhexda si fiican uga gashaa rootiga si uu jileec u noqdo. sidaasay u jiidmaysaa. tv-ga ilmaha u shidan, codadka aad maqlaysiin waxaa waa ilmihii iska ciyaarayo, raali noqda. annagana waxaa shaqaan iskaga jirnaa, shaqaa iska sameysanaya. ayagana meelay shaqo ku haystaan. ayagana waa shaqadooda inay tv-ga iyo ordaan iyo qayle iyo wax un lee maqale. marka raali noqda walaalahayga. ugu dambeyn caanahena sidaas quruxda badan ay kusoo baxday. waan caano fadhiso adag, maasha allah. caanihii gasaca waa ugu maarantaa. waxaad ka samaysatay waad hubtaa. waa wax natural adigaa samaysatay oona og tahay. waxaad ka hagaagsatay, maasha allah. sidaas bay noqotay. waa same caanaha gasacdaysan iyo caanahan. waa caano macaan adiga aa gacanta ku samaysatay, maasha allah, tabaarakallah. intii haysato allah u zaa-idiyo, intii haysanin allah siiyo. mar walba rabbi waan ku mahdinaa, alxamdulilah. faanaga ma aha. marka waxaan leeyahay asxaabteyda janalka ku xiran, walaalahayga, gruubkayga dhammaan waxaan leeyahay soo dhawaada. janalka waa janalkiina. subscribe saara, like saara, sii share gareeya si aan u wada socono. gambaleelka furta. qofkii ugu cusub waxaan leeyahay soo dhawow, gambaleelka furo. qofkii la joogay waxaan leeyahay jir oo weligaa joog. waad ku mahadsantihiin dhiirigelintiina, commentigiina quruxda badan. mar walba saa ii garab istaagtaan, maasha allah. anigaa idin tijaabinayo macaankiisa lagama sheekeyn karo. caanahan meelo badan oo isticmaali kartaa. maanta qorsheyga ma aha rootigaas inaan idin soo geliyo ee caaniya hagaagsanayay. anagana rooti aan sameysanaynay, sidaasay ku kulmeen. soo marka waa idinla wadaagay.